السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتي شرفت له maanta waxaan idin wadaa fiidiyogan idinku tusin doona kareem ka saacidi doona markaas wajigaaga ama maqaarka jirkaaga in uu ka yaraado da'diisii inta aad in 5 sano ama 10 sano hoos looga jaray hadii aad doonayso inaad barato sida loo sameeyo kareemkan gurigaaga dhexdiisa ama jikadaada aad uga dhex samaysatid fadlan ila daawo fiidiyowga oo dhameystiran adiga oo mahadsan waxaan u baahanahay sida aad ka aragtaan fiidiyowga karooto xabad karooto ah sidoo kale waxaan u baahanahay saliida macsarada sesame oil sidoo kale waxaan u baahanahay caag yar oo weel yar oo ku shubano kareemkeena hadhow iyo aloe vera gel sad ka aragtaan fiidiyowga sidoo kalena weelka aan ku miirmiiran lahayn iyo kuwa aan ku xoqan lahayn iyo wixii lamida insha Allah ila daawo fiidiyowga oo dhameystiran haddana waxaan sameynaynaa marka hore inaan xoqno oo qaybta waliba yar yar ee wax lagu xoqdo ama hadaa artidna waa shiidi kartaa hadaa haysatid mashiinka yar ee waxyaabaha qalqalan lagu shiito ama sharaabka nooca kan yar gaaban waxyaabaha qalqalan lagu shiito markaasna dhacaanka si aad ogala baxno karootada dhacaankeeda ayaan u baahanahay insha Allah haddii aan ka hadalno faa'iidada ay leedahay karootada waxaa ku jirto beta carotene waxa la dhaho taasoo hadhow jirkeena isku bedesho markuu jirkeena galo isku bedesho vitamin A na waa waxyaabaha ugu muhiimsan ama fitamiinka ugu muhiimsan ee skinkeena macnaha ka dhiga young beautiful qurux ka dhiga waa yareeyo qurxiya macnihi cimrigiisa da'diisa yareeyo si aan wada ognahay kareemada anti aging ka ay lagu gado cosmeticska waxa ku jirta maadan la dhaho retinol oo ah vitamin A hadii aysan ku jirin vitamin A that means anti aging ma aha hadii anti aging creams ee meesha ku soo qoran ama soo dhigan ay dhahan kareenkan waa anti aging laazim waa inuu ku jira vitamin A ama retinol haba saa u taqaan labadaba waa la dhahaa haduusan ku jirin kareenkaas anti aging ma sida daraadeed karootada waxa ku jirto beta carotene wax la dhaho taasoo hadhow isku bedeli doonto vitamin A marka jirkaaga ee gasho karootada laba siyaaboodba jirkaaga waad uga qaadan kartaa haday noqon lahayd inaad marsatid iyo haday noqon lahaydba inaad cabtid oo sharaab ka samaysatid labadaas dhinacba vitamin A gi waad ku helaysaa oo way isku bedelaysaa marka hadda kareen ayaan sameynaynaa oo aan wajigeena ugu talagalnay in aan marsano laakiin insha Allah waan nacabi kartaa oo sharaab waad ka samaysan kartaa sida aad fiidiyowga ka aragtaan haddaba karootadani waan miiranay halkaas ay noo mareysaa dheecaanka ayaan kala baxeynaa karootada waxaa ku jirta sidoo kaleeto fitamiino badan oo vitamin C ee ka mid ah isagana skinka maqaarka macnaha brighten u sameeya cadeeya macnaha dhalaaliyo qurxiyo oo midab furan u sameeya sidoo kale waa antioxidant waaye waa fitamiino badan ku jirta karootada aan soo koobi karin oo run ahaantii skinkeena qurxisa aadna ma taqaan uga dhigtay yaangi yareesa skin qof da'yar ka dhigayso oo markaasna hadii aad laasintid oo adikana aad wadaan aad insha Allah dareemi doontaan resultiga haddaba ila daawo hadeer karootadeeni 2 qaando ayaan kaga shubanay dhalada baaquliga yarka ah ku shubanay haddana waxaan ku shubi doonaa saliidi macsarada ahayd saliida macsarada waa idin sheegay faa'iidada leedahay fiidiyo dhan baa ka soo sameeyay oo waxa ku jirto waa natural waxa waaye natural waxay u tahaybo sunscreen u tahay qoraxda ay ka protect gareynaysa fitamiino badan ku jiro waan ka soo hadlay iyadana haddana waxaan ku darsan doonaa aloe vera gel hal qaando saliid macsarada kaga darsanay haddana 2 qaando ama hal qaando oo aloe vera gel ayaan kaga darsan doonaa waa intaas oo kaliya aloe vera gel aad ay ugu fiican tahay skinka markay waliba noqoto dhanka moisturizing ma aragtay in skinka qoyso ay ka dhigto skin macnaha dehydrated ah
ayay iyaduna kaalin weyn ka qaadataa iyo qurxin iyo dhinac walba iyo sidaa daraadeed saddexdaas wax ayaan isku garaaceynaa si u noqoto wax yaro creamy ah ama syrup camal ah haba sida aad u taqaantid oo syrup ahaana waa ka dhigan kartaa. haddaad rabto xoogaa inay ku adkaatona waxaad oliveeradaad ku badsan kartaa ilaa 2 qaando ku shuban kartaa ama 3 qaando waxba kuma yeelayso mar walba quruxun baad ka qaadaysaa. waa isku garaacaysaa biidnillaah waa isku garaacaysaa waxaadna ku daraysaa anigu hadeer ma haysto oo iyadana aad u fiican oo kaas kusii qurxinayso vitamin E vitamin kala dhoo asagana skinka kaalin weyn ka qaata markay noqoto dhanka da'yarida iyo skinka inuu noqdo young beautiful macnaha soft shining ma garanaysaa. sidaa daraadeedna 2 capsule vitamin E-ga 2 capsule ba afka ka jiraysa ku shubanaysa haddii iyadoo syrup haysatid sidaas oo kaleeto qaando halfkeeda qaandada shaaha oo kaleeto aad ku shubaysaa qaandada macnaha shaaha lagu walaaqo yaryarta tan hadda aan ku garaacay halfkeeda oo kale intaas isku garaacanaysaa waxaadna ku shubanaysaa weelkan yar ee agteeda yaal ama waxa weel alla weelkaad haysatid kadibna waxaad gashan kartaa talaagada si ay ku hayso isbuuc ama 2 isbuuc ayaad marsan kartaa. qurux ayaad noqonaysaa da'daadina da'dii hore waa ka yaraan doontaa young beautiful ayaa noqon doontaa adigana is arki doona biidnillaahi kariim. kareenkeeni sidaas noogu diyaarsan yahay waa ka meeshaan aan ku shubanay aad ayaa u mahadsantihiin. please barnaamijyadeeda subscribe ka saar haddii aad ku cusubtahay haddii aad hore noola joogtana like iyo commentiga iyo inaad asxaabtaada la sii share gareysatid please ku dadaal si ay uga faa'iideystaan dhammaan gabdhaha ama wiilasha da'da yar ee jecel inay nafsadooda qurxiyaan because quruxdu kaliya ma aha gudaha banaankana in qofka iska qurxiyo kaalin weyn ay ka qaadataa. aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin daawashada fiidiyoga ay la daawateen. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.